مشروع ما أنت حرقة عن كشرينه باي باس كمجال الجيجا وقاكوا أن تضوّر دبي 3 كيلومتر أي نمال جلسي دولة فدرالكو ومشروع كم ذا مشاريع ذا فرح بدن إثبات الكذب حزب برواقه وجامين الرئيس وزراء الوكالة ديجان كصومالي وكسو كردية وياه مشروعا وحقيب كي وكالة مشاريع ذا هرموني تمجالوينك سيد حوجة لاب اللعبة إثبات الكذب إن شاء الله هديها لي مشاريع ذا ولا سوى دي دونا magaalada Jijiga oo ah caasimadda deegaanka horay waxa xukuumaddu ay u sheegtay inay tahay caasimadii iyo muraayadii deegaanka laga arkay qofka deegaanka Soomaalida inuu arko raba wuxuu ka bilaabayaa caasimadda wuxuu caasimadda ku arkay in bulan noqonaya sida daraadeed waa muhiim in caasimaddu ay yeelato waji u qalma iyadoo laga duulayo aragtida dadaalo bil oo fiican baa jira wax fara badan oo qabiina way jiraan ma dhameystirna marka xukuumaduna insha Allah way sii xoojin doontaa hawlaha sanadkan in iyadana laamiyadii la bilaabay la sii kordhiyo oo wadooyinka halbowlayaasha ee wali dhiman xooga la saaro kuwa magaalada gudaheeda laftigooda isku xixilkooda in maaragtay iyagana laga shaqeeyo in laga shaqeeyo qorshihii bypass kale oo magaalada dhinaca waqooyiga kamara jaamacaddana qaybiya in la helo isagan in laga shaqeeyo dhanka leydka magaalada balaarinta leydka balaarinta biyagelinta magaalada iyo sii xoojinteeda hawlahaas oo dhan hawlo inoo dhiman weeye dheeraynta magaalada si ay caasimad quman runtii ugu ekaato waxyaalahaas oo dhan baa loo baahan yahay waxaan halkan ka ballan qaadaynaa in hawlihii socday la sii laba jibaarayo hadday yihiin kooridarka iyo kuwa aan ka hadlayba waxaan markaa shacabka ka codsanaynaa inay iyaguna sidii haddaba ay dowladda ula garab istaageen taageero oo qaar badan oo iyaga ka mid ah oo maaragtay ay saameysay kooridarkii ay danta guud ee ummadda uga doorbideen culaysadii markaa iyaga fuulayay in arrintaa inagoo gacmaha haysanna aan sii qabanno ayaan ka codsanayaa waxaan mar kale u mahadnaqayaa Arwo Jaaltu iyo wasaaraddeeda oo si ballaaran taageero farsamo iyo taageero toosaba deegaanka u siiya mudane maxamed cabdiraxmaan maareeyaha shirkadda jidadka dalka oo dabagalkiisa iyo joogtayntiisa mashruucan suurta gelisay qadaraaslihii mashruucan dhisay Yirgaalam construction oo u dhagan nugla talooyinkii la siinayay runtii oo ay ka mid ahayd qorshihii hore ee la sameeyay wuxuu ahaa bypasska laakiin in 300 ee lagu xirayo corridorku qorshe dambe lagu daray buu ahaa si uu uga go'naanin magaalada oo ugu xidhno marka dhammaan intaas hawlwadeed ka soo shaqeeyay hawshan iyo waliba sidoo kale intii heer deegaan hay dabagalkeeda sameynayay dhamaantood u mahadnaqaya aad iyo aad baan idin salaamaya horumarkaas inoo bilowday wuxuu ku suurta galay maadaama amnigeenu uu sugan yahay waxa nabadgelyada ay laga helaa ka badan wax walba oo shaqam dawladeed ku yimid sida daraadeed nabadgelyada inaan sii xoojino midnimada shacabka inaan sii xoojino deganaanshaha siyaasadeed sii xoojino waxyaalaha kale inoo dhiman hadda tayeenta waxbarashada guriyeynta oo kale magaalooyinkeena badankoodu dad fara badan oo dan yara ay leeyihiin marka inaynu guriyeyn fara badan oo kala noocyo ah aynu sameeyna waa loo baahan yahay waxyaalahaas oo dhan aynu ugu qabsoomaan insha Allah hadii la yeelay inaan inaguna kaalintii aanu ciyaarnay sii qaadano baan ku dardaarmaya mar kale waa idin salaamaya hambaliyo waad mahadsantihiin